cid kasta oo Soomaaliya horumarkeeda kamida magaalooyinka Soomaaliya horumarkeeda waan soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol taageerida Soomaaliya ay taageeraysan aad u soo dhaweynaynaa waxaan u mahadcelinayaa dowlad goboleedka naftaaskeena Puntland sida ay taageertay ukaaga sheekhow halkaa ku hay hadalkaaga iyo qoriga aad siyaasadda ku raadinaysa odagana markaysaa waa odaga horjoogaha u ah urudiimeedka ahlu sunna wal jamiica ahlu sunna wal jamiica muddo dheer waxa ay hogaaminaysay maamulo ka jira gobolada dhexe khaasatan gobolka galgaduud oo hadda loo bedelay maamul goboleedka galmudug ahlu sunna wal jamiica waxay yidhaahdaan waxaanu u qidmaynaa diinta laakiin sida ku cad waqtiyadii u dambaysay taariikhdooda waxay ku salaysnaayeen siyaasiyiin kuraas doona isbaarana dhigto magaalooyinka matabaan burceel iyo dhuusamareeb hal sano hadda ka hor ra'iisul wasaarihii hore dalka Soomaaliya iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa siyaasadoodii soo afgaray raggaana u diray dibadda dad badani waxay isweydiinayaan urudiimeedka ahlu sunna wal jamiica waa tii la qanciyey dibaddana loo diray hubkoodina lagala wareegay maxaa hadda soo cusboonaysiiyey jawaabtu waa sahlan tahay ahlu sunna wal jamiica waxaa dib u soo cusboonaysiiyey oo xiriir la sameeyey ra'iisul wasaaraha awooddiisa la dhimay master Roble waxa uu la kaashaday maamulka Puntland madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani Roble oo u arkay cadow madaxweynaha galmudug mudane Axmed Qoorqoor ayaa arrintani ka dambeeyey uguna talagalay in Axmed Qoorqoor iyo maamulka galmudug uu mashquuliyo ahlu sunna wal jamiica markay soo degaysay Soomaaliyana imaanaysay madaxdeeda hal bistoolada ma aysan wadan ahlu sunna wal jamiica markay ka dhoofaysay Soomaaliya hubkooda waxay ku wareejiyeen maamulka galmudug waxaan rabaa xaqiiqda jirto inaan ummadda u soo bandhigo Roble waxa uu u wakiishay inay hub helaan ahlu sunna wal jamiica Siciid Cabdullaahi Dani Siciid Cabdullaahi Dani iyo imaaraadka iyo Roble waxa ay gaariyo cusub iyo tignika cusub iyo hub cusub ka soo dejiyeen dekedda Boosaaso dhulkaan la soo mariyey waxaa la keenay magaalada Gaalkacyo hubkaasi waxaa lagu wareejiyey wasiirka amniga galmudug ee dowladda uu ka tirsan yahay mucaaradka ku ah yaa hubkaasi lagu wareejiyey ahlu sunna wal jamiica waxay ka soo degatay maamulka Puntland dhulka ayay soo martay ahlu sunna wal jamiica ayadoo ku sugan waqooyiga Gaalkacyo ayay ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah dowlad goboleedka galmudug waxaa rabaa inay tuso hubka ee Puntland ku wareejisay wasiirka amniga ee dowladda uu ka tirsan yahay mucaaradka ku ah Axmed Macalin Fiqi bal wax yar la daawada idinku mahadsan in baabuurtaana tobankaana waan gudoonnay waa la wareegnay waana ka mahadcelinaynaa waxaan rajaynaynaa kuwa ka badan inay soo daba socdaan ilaahay idinkiis waana ku mahadsan yahay madaxweynaha Dani iyo dowladda Puntland iyo shacabkeedu aad iyo aad u mahadsan cabdikariin guule waa madaxweynihii hore ee galmudug kuna fashilmay inuu maamulo galmudug cabdikariin guule wuxuu ahaa mas'uulkii ugu horreeyey ee soo sheergareeyey warqadda ahlu sunna wal jamiica ee ugu dhawaaqaysa inay dagaal la gelayso maamul goboleedka galmudug cabdikariin guule waxay jifo hoose isla yihiin ra'iisul wasaaraha awooddiisa la dhimay master Roble Axmed Macalin Fiqi wasiirka amniga ee galmudug haddana mucaaradka ku ah isla maamulka uu wasiirka u yahay waxay jifo hoose isla yihiin ra'iisul wasaaraha awooddiisa la dhimay master Roble Axmed Macalin Fiqi waa ninka hubka kala soo wareegay maamul goboleedka Puntland tignikadaas iyo hubka saaran waxay si toos uga yimaadeen waddamada imaaraadka waxaana loogu talagalay inay ku dagaalgalaan ahlu sunna wal jamiica wax qarsoon ma ahayn Roble oo aan ku jifo ahayn madaxweynaha maamul goboleedka galmudug kana xanaaqsan saaxiibtinimada ka dhaxayso madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo Qoorqoor ayaa ka dambeeya in dagaal laga qarxiyo galmudug
galmudugna la baabi'iyo maamulka puntland dantiisuu ka dhex arkaa sababtoo ah galmudug oo dekad yeelatay waa puntland oo dhaqaalaheeda lala dagaalamay galmudug oo maamul goboleed sax yeelatay waa puntland oo federaalka lagula jaalajagareeyo waxyaabahaasoo dhan oo isbiirsaday yaa maanta galmudug dhibaatadaa ku haya rooble kama uusan fikirin shacabka soomaaliyeed ee iftiinka u baxaya inuu iftiinkooda duminayo rooble kama uusan fikirin dadka bartaa deggan inay yihiin habaryartii eeddadii hooyadii iyo ehelkiisa rooble waxa uu fiiriyey jifo hoose way ka wada tirsan yihiin cabdikariin guuleed axmed macalin fiqi iyo doorashada xildhibaanada ay dhacayso rooble waxa weeye guushiisa ugu weyn in galmudug loo kala fariisiiyo 3 magaalo cadaado dhuusamareeb iyo gaalkacyo rooble guushiisa ugu weyn waxa weeye inuu dib u soo celiyo ninka la yidhaha cabdikariin guuleed rooble guushiisa ugu weyn waxa weeye inuu dib u soo celiyo axmed macalin fiqi rooble marnaba kama uusan fikirin natiijada ka dhalan karto inuu dagaal ka dhaco galmudug rooble waxa uu noqday nin talada iyo isteerika u hayaan maamul goboleedka puntland oo danahooda ka dhex arkay inay galmudug burburto soomaaliya ra'iisul wasaaraha hadda awooddiisa la dhimay waxa uu heshiis la soo galay dowladda kenya wuxuuna heshiis kula galay soomaaliya afarteeda koone in dab laga shido rooble doorashada soomaaliya hadda laguma aamini karo sababtoo ah waxa uu si toosa ula saftay mucaaradka dowladda rooble markii doorashada loo dhiibayay ummadoo dhan waxay aaminsaneen inuu noqon doono dhexdhexaad rooble ma noqon dhexdhexaad rooble wuxuu isu beddelay dagaal ooge rooble wuxuu noqday nin hooyadii iyo habriyadkii iyo ehelkiisa tignika cusub soo dhex dhigo si ay isu laayaan